أخوة الكرام waxaan ka jawaabayaa oo meeshan saxaafaduhu igu yimaadeen been abuur lagu been abuurtay oo wax aan jirin ah sal iyo raad midna aan lahayn ah qofku dadku waa hadlaa hadalku marka mafhuum iyo manduuq buu leeyahay dadka qaar waa ahlu xaqiiqo qaar waa ahlu baadin qaar cilmu daahir bay ku hadlaan qaar waxa ku hadlaan cilmu dhanni waxa fiican marka qofkii hadla in la yiraahdo war sheekhow saasan aragnay maxaa kala jeed haddii qof meeshuu raba la aado qof meeshuu raba u fasirto hadda waxay noqonaysaa waxa la keenayaa wax mawduucii laga hadlayo wax ka baxsan sida hadda wakaana fi lmadiinati 9 rahad markaan lahaa dad noocaas baa magaalada joogo sida ilaahay tilmaamaya ah marka muslimiinta dadka maqlahaya haddii alla ku ron yahay waxay ogaanayaan oo aan u sheegayaa oo cadaynayaa wixii loo sheegay haddaan wax wara kama hayo laakiin waxay soo gaartay oo hadda la soo sheegay in warkaan ayri la bedelay waxyaalaha la sheegay oo oo been abuurka anigu ma aanan oran mana iga suurtoodo mana oran doono hadda ka bacdi inkastoo hadda wax dambe ku soo qaabilahay ay mustaqbal oo aan laga warqab karin haddana sida ra'yiga ku jira iyo culumta aan leeyahay ma oran doono xataa hadda ka bacdi saxaafadda marka hadda ay su'aalaysaan ii soo daayay sheekh dad badan ayaa arintan siyaabo kala duwan uga hadlay marhaban sawirkan hadda la sheegayo muxuu yahay dadka faahfaahin ka sii sawirkan hadda korkayga suran miya ha sheekhaygii weeye waa sheekhaygii waa murabbigaygii haddii alla ku ron yahay nin aad u maqaam weyn weeye macna oo darajo weyn weeye ilaahay darajo weyn ku leh wararka qaar waxay tilmaamayaan in sawirkaas muuqaal laga duubay adiga inaad ku tilmaamaysid inuu yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadkuna ay aad arinta u hadalayaan mas'uuliyiin ka tirsan galmudugna ay sheegeen in baadil ay tahay arinta laguna soo qabta nabi baa la soo wareebaa ha taas wariga ma maqal ha waa sawir ku banaan xataa ma maqal wala la soo warees ka daay galmudug waxay sheegtay in lagu soo qabto maadaama sida ay sheegeen gefaad u geysatay rasuulka arintaas waa taas aad waa ku amaanaya hadayba xabiibka saas u xusuusan yihiin waa waxa ka waayay ha anigu meeshaan ilaa 9 sano baan ilaahay xuskiisa u fadhiyay xabiibka salawaadkiisa marka hal qof oo galmudug oo la ninkaas waa fiican yahay ma maqale ma maanta alihi day ku soo dajiyay خير باشا يسانيو